السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عافيماد قبا أن إذين رجينيا ninkan wuxuu yiri arrin bay haysata waana dhibaataysanahay arrintaas ayaan aad ula yaabanahay buu yiri. Wuxuu tilmaamay ninkan ama uu sheegay wuxuu yiri markaan xaaskayga u galmoonayo waxa xagga dambe iga socda naqasaadu badan ayaa xagga dambe aan ka sii daynayaa buu yiri. Naqaskaas ma yihi buu yiri nin weyn oo odaya oo jirkiisu dabcayn in dhalinyaro ayaan ahay heer waxaan gaadhay buu yiri aan aad iskula xishoodo xaaskaan qabana ay ku dacayadeysay tiraado maxaa ka qaldan ma oday baa tahay bay ayaa quraarkiisa ku soo qoray. aad buu mahadsan yahay hadeen jawaabtiisa u nimaadno waa su'aal caafimaad hadeen jawaabtiisa u nimaadno horto odayaashu caan kuma aha in iyaguna ay sida ay qoraalka xagga dambe kaga soo xustay lagu arko xaalad baa keeni karta dabcan xaaladaas laba qaybood ayay sida caadiga u badantay. midda koobaad waa dhinaca digestive system-kaaga oo ay wax ka sii yihiin. dhinaca labaadna waa cuntada aad qaadato ama aad isticmaasho. labadaas ayuunbaa sida commonkaa sababa naqaska dambe ee markaas ninku sameeyo. cuntada marka aad isticmaalaysa haddii ay tahay cunto gaas badan leh ama air badan leh xilliga ficilka aad ku guda jirtay aad ficilka sameynayso ee hawsha aad ku guda jirto way iman kartaa markaas naqaska dambe ka soo baxaya. laakiin haddii uu jiro xaalad dhinaca digestive system-ka oo ama caloosha ama midhicirada waaweynina iyaduna way koskreyn kartaa ama way sababi kartaa in naqasku yimaado. haddaba si labada xaaladood aynu differentiate iyo classification aynu ugu samayno waxa habboon in waxa sida tooska u sababaya la ogaado. waxaad markaa ku ogaan kartaa cuntooyinka kala badbadal habeenka aad isticmaasho. tusaale ahaan oo kale imika bulshadeen waxay isticmaashaa gaar ahaan raggeenu dadka waddankeennii jooga in ay qaataan digirta guduudan. digirkaasu naqas dambe ayay leedahay oo weliba habeenkiina ku sii casheeyaan inta badan ficilka gogosha habeenkii bay sameeyaan. marka uu isku arki karaa ninku haddii uu xagga ama waddankii uu joogo uu digirta isticmaalo uu keeni karaa. marka cuntada habeenkii yare kala bedel si aad u ogaato in cuntada tahay. hadday marka cuntada ahaan weydo waxay noqonaysaa in digestive system-kaaga la baado in dhakhtarka uu ku jirka aad tagto in markaas la ogaado xaaladda rasmiga ah ee keenaya ama sababaya. si kastaba ha noqotee haddii ama cuntada ha ahaato ama dheefshiiska ha ahaatee haddii markaasuna aad isku arkayso oo mararka kale aan isku arkayn dhibaatadu waa dhibaato sahlan hana ka warwarin laakiin saas samee. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.